asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada dalable media waxaan idinla wadaagi doonaa xiisadaha colaadeed ee awdal iyo salal dhaqdhaqaaqi maleeshiyaad oo ka socda heemaal faahfaahin dagaal ka dhacay deegaanka xariirad jabhadaha ciise iyo gadabuursi oo fariimo culus hawada isu marinaya. soo dhawaada haddii aad inagu cusub tahay janalka sabscribe inoo saar muuqaalkii noo lagaray asxaabtaada la wadaag aragtidaadii inoogu soo gudbi qaybta faallada. mahadsanidin. gobolada awdal iyo salal ayaa mar kale wajahaya xiisado colaadeed oo isi soo taraya kuwaas oo la xiriira dhaqdhaqaaqyo maleeshiyaad oo laga soo sheegayo deegaanada heemaal iyo agagaarka xariirad iyo fariimo culus oo hawada la isku marinayo oo u dhexeeya jabhadaha beelaha ciise iyo gadabuursi. warbixintan dheer waxaan si faahfaahsan ugu eegaynaa asalka khilaafka iyo taariikhda soo jireenka ah dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee heemaal, faahfaahinta dagaalka ka dhacay xariirad, dagaalka warbaahinta iyo hanjabaadaha ay isdhaafsanayaan. sidoo kale waxaad maqli doontaan saameynta shacabka, ganacsiga iyo amniga guud iyo fursadaha xal u helidda colaadda. gobolka awdal oo xarintiisu tahay buurame iyo salal oo leh degmooyin istaraatiiji ah sida saylac iyo xariirad waxaa ku yaalaan xuduud muhiim ah oo isku xirta somalilan iyo jabuuti. xariirad gaar ahaan waa marin ganacsi iyo dhaqdhaqaaq xuduudeed oo aada muhiim u ah. muddooyinkii u dambeeyey xiisaduhu waxay ka dhasheen muranno ku saabsan dhuldaaqsimeed, saameyn siyaasadeed iyo maamul deegaan, tartan ku saabsan saameynta xuduudaha ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqyo maleeshiyaad oo si gaar ah uga soo kordhay heemaal. xiisadahaasi ma aha kuwo cusub balse waxay soo noqnoqdaan marka ay jiraan isbeddello siyaasadeed ama abaabul hubaysan oo beeleed. wararka laga helayo heemaal waxay sheegayaan in halkaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaq maleeshiyaad oo abaabulan kuwaas oo la sheegay inay isku urursanayaan dhanka beelaha isku haya muranka. ila deegaanka ayaa tilmaamaya in maleeshiyaad hubaysan lagu arkay hareeraha tuulooyinka, in gaadiid dagaal lagu arkay wadooyinka isku xira heemaal iyo deegaanada kale, iyo in odayaal dhaqameed ay ku mashquulsan yihiin dadaallo ay ku qaboojinayaan xiisadda halkaasi ka jirta. arrintan ayaa sare u qaaday cabsi ku saabsan suurtagalnimada dagaal ballaaran haddii aan si degdega loo dhexgelin. dagaal kooban balse culus ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka xariirad kaas oo u dhexeeyey maleeshiyaad ka kala tirsanaa beelaha ciise iyo gadabuursi. wararka horudhaca waxay sheegayaan in rasaas culus la isweedaarsaday, in khasaaro dhimasho iyo dhaawaca uu jiro, inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin tirada rasmiga ah. in dad rayid ah ay barakaceen. xariirad oo ah meel xuduud ah waxay leedahay muhiimad istaraatiiji ah taasoo ka dhigaysa goob kasta oo iska horimaad ahi mid saameyn weyn leh. xiisadda ma aha oo keliya mid ku kooban goobaha dagaalka balse waxay si weyn uga socotaa warbaahinta iyo baraha bulshada. fariimaha ka imaanaya dhinacyada ah ayaa ah jabhado ka tirsan beesha ciise ayaa ku hanjabaya inay iska difaacayaan wixii weerar ah. jabhado kale oo ka tirsan beesha gadabuursi ayaa iyaguna sheegaya inaysan ogolaan doonin in lagu xadgudbo deegaanadooda. hanjabaadahaasi waxay sii horinayaan xiisadda gaar ahaan marka ay ku baahaan baraha bulshada oo si degdega u gaara bulshada gudaha iyo dibadda intaba. xiisadaha colaadeed waxay si toosa u saameeyeen dadka rayidka ah. qoysas badan ayaa ka guuraya tuulooyinka ku dhow goobaha isku dhaca uu ka jiro. sidoo kale xariirad oo ah marin ganacsi ayaa hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqa ganacsigii ka jira halkaasi. iskuullo ayaa la xiray cabsi amni darteed. sidoo kale isbitaalada iyo xarumaha adeega caafimaadka ayaa la kulmay culeys dheeraad ah. bulshada deegaanka ayaa ka cabsi qabta in colaadda ay sii daba dheeraato. dhaqanka soomaaliyeed wuxuu ku dhisan yahay xalinta khilaafaadka iyada oo loo marayo odayaal iyo ergooyin nabadeed. wararka la helayo waxay sheegayaan in shirar hoose ay socdaan, in dadaallo lagu doonayo xabad joojin la wado, in waxgarad iyo culummo ay ku baaqeen nabad. haddii dadaaladaasi ay miro dhalaan waxaa suuragal ah in colaadda la qaboojiyo ka hor inta aysan isku beddelin dagaal ballaaran. xiisadaha ka taagan awdal iyo salal waxay leeyihiin saameyn ballaaran. waxay dhaawici karaan sumcadda nabadgelyo ee somalilan. waxay sidoo kale abuuri karaan kala shaki beeleed. waxay keeni karaan faragelin siyaasadeed. amniga guud ee gobolka ayaa ku xiran sida degdega ah ee loo maareeyo xaaladdan. xalka ugu macquulsan wuxuu noqon karaa xabad joojin degdeg ah, shir nabadeed oo ay ka qayb galaan odayaal, culummo iyo maamulka, hubka dhigis maleeshiyaad, heshiis qeexaya xuduudaha iyo maamulka dhulka muranku ka taagan yahay. haddii tallaabooyinkan la qaado waxaa la yareyn karaa khatarta dagaal sii fida.
xiisadaha colaadeed ee ka taagan awdal iyo saleel gaar ahaan heemaal iyo xariirad waxay muujinayaan sida khilaafka beeleed ee aan si buuxda loo xallin ay markasta dib u soo laaban karaan. dagaalka ka dhacay xariirad iyo dhaqdhaqaaqyada maleeshiyaadka ee heemaal waxay sare u qaadayaan walaaca bulshada. fariimaha hanjabaada ah ee jabhadaha ciise iyo gadabuursi ay isdhaafsanayaan waxay sii horinayaan colaadda ka jirta halkaasi. si kastaba haatee fursad nabadeed weliba ay jirta haddii odayaasha dhaqanka si dhab ah ay u dhex galaan maamulka gobolladuna qaadaan tallaabooyin amni, bulshaduna ka fogaato horinta colaadda. dekad ganacsi oo ku taalla Cumaan ayaa la weeraray. dalka Cumaan haan shidaal oo ku taalla dekadda duqda ah ayaa lagu weeraray diyaarad aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda Cumaan. iyadoo waxyeelada la xakameeyay wax khasaare naf ah lama diiwaan gelin ayuu yiri ila amni oo aan magaciisa la shaacin. isla dekadaas ayaa sidoo kale lagu weeraray drones dhammaadkii toddobaadkan. wararka ayaa sheegaya in hal shaqaale uu ku dhaawacmay. dalka dariska la ah ee Qatar soo saarista gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah ee loo yaqaano LNG ayaa la joojiyay maalintii Isniinta, taas oo qiyaastii ka dhigan 5 meelood meel sahayda caalamka kadib weeraro ay Iiraan ku qaaday qaar ka mid ah xarumaheeda. Sacuudi Carabiya ayaa iyaduna hakisay wax soo saarka warshadeeda sifaynta shidaalka ee ugu weyn dalkaasi. Cumaan ayaa muddo dheer door muhiim ah ka ciyaarisay dhexdhexaadinta wadahadallada Mareykanka iyo Iiraan. kuwii ugu dambeeyay waxay ka dhaceen dalkaas bishii hore, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi uu ku tilmaamay wadahadalladaasi bilow wanaagsan. haddaba sidee ayay dalalka khaliijka u arkaan colaadda ka dhex xaloosan Israa'iil oo garab ka helaysa Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan? marka loo eego jawaabta ay Israa'iil ka bixinayso weerarka gantaalada ah ee Iiraan, dad badanina ay la socdaan isbedelada suurtagalka ah ee ku yimid isu dheelitirka awoodda bariga dhexe ee u dhaxaysa Israa'iil iyo kuwa ka soo horjeeda. waxaa sidoo kale isha lagu hayaa dalalka Carabta ee khaliijka, kuwaas oo muddo dheer lagu tilmaamay in xiriirkooda Tehran oo xumaa. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa 2 ilo oo aan la magacaabin ayaa sheegtay in dowladaha khaliijka ay fariin u direen Iiraan iyaga oo doonaya inay u xaqiijiyaan dhexdhexaadnimadeeda khilaafka Israa'iil, iyadoo la tixraacayo shir aan rasmi ahayn oo ay si wadajir ah u wada yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka khaliijka oo la qabtay Oktoobar 3 oo uu shaaca ka qaaday xogayaha guud ee golahaasi Jassim al-Badawi. dadka waxindhaindhee ayaa la yaaban suurtagalnimada in hoos u dhac ku yimaada saameynta Iiraan ee gobolka iyo falcelinta dowladaha khaliijka, balse suurtagal maaha in la isku keeno dhammaan dalalka khaliijka oo dhan, maadaama danaha iyo walaaca ay ku kala duwan yihiin dalalkaasi oo dhan. haddii aan sheekada ka bilowno Sacuudi Carabiya, falanqeeye siyaasadeed oo lagu magacaabo Xasan oo ah bare sare oo wax ka dhiga macadka bariga dhexe ee Washington ayaa aaminsan in boqortooyada laga yaabo inay ku sii jirto booska ugu wanaagsan ee wadamada khaliijka ee ku saabsan xiriirka Iiraan. falanqeeye Xasan ayaa sidoo kale waxa uu muujiyay in dib u eegista iyo dheelitirka xiriirka Riyaad iyo Tehran uu wanaagsanaa kadib heshiiskii ka dhacay Shiinaha sanadkii 2023 kaas oo furay albaabada dhinacyada kadib 7 sano oo ay kala maqnaayeen. wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya Amir Faisal bin Farhan ayaa magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar kula kulmay madaxweynaha Iiraan Mas'uud bishii Oktoobar 2 sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Iiraan ee loo yaqaano IRNA. isla kulankaasi waxa uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Iiraan in wadankiisu uu tixgeliyay wadamada Islaamka oo ay ku jiraan Sacuudi Carabiya walaalahayn, isagoo carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la diido kala duwanaanshaha fikradaha. dhinaca Sacuudiga, qoraaga Sacuudiga ah ee loo yaqaano Mubarak al-Aati ayaa tilmaamay in kulankani uu cadeynayo xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya boqortooyada Sacuudiga iyo Iiraan, isagoo sheegay in mowqifka Sacuudiga uu yahay mid cad oo taageersan amniga, xasiloonida iyo madaxbanaanida dalalka Carabta, gaar ahaan Lubnaan, kana soo horjeeda ku xadgudubka madaxbanaanideeda ee Israa'iil iyo Xisbullah. Imaaraadku waxay gaareen meel aan laga soo laaban karin. sanadkii 2020 Imaaraadku wuxuu ku dhawaaqay inuu caadi ka dhigay xiriirka uu la leeyahay Israa'iil. Tallaabadan ayuu falanqeeye Xasan waxa uu ku sheegay
waxay ujeedadeedu ahayd in la gaaro guulo diblomaasiyadeed oo ka dhigaya in ay u muuqato dhexdhexaadiye u dhaxeeya dalalka Carabta iyo Israa'iil. xaaladan oo kale Imaaraadku wuxuu xiriir xoog ah la galay Israa'iil, wuxuuna aaday sida uu sheegay Xasan, isla markaana uu warbixintiisa ku qeexay ilaa heer aan soo noqosho lahayn, taas oo dhigaysa mowqifka ugu xasaasisan marka la eego iskoorimaadiyada hadda u dhaxeeya Israa'iil iyo Iiraan. dhinaca kale, magacyada magaalooyinka ay weli duqeyntu ka socoto ee Iiraan ayaa la shaaciyay. weerarada Israa'iil iyo Mareykanka ay ku hayaan magaalooyin kala duwan oo ku yaala Iiraan ayaa weli socda. sida ay wararku sheegayaan, weerarada Mareykanka iyo Israa'iil ee ka socda magaalooyinka kala duwan ayaa sii socday, waxaana saacadihii la soo dhaafay qaybo kala duwan oo Iiraan ah ay noqdeen bartilmaameed mowjado cusub oo weerar ah ay ku dhacayeen, oo ay ku jiraan Tehraan, Badis iyo Barshin, Busheeri iyo sidoo kale Urmiya. sida ay sheegtay maamulka gobolka Isfahan, 3 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay weerar maanta lagu qaaday meel ku taala gobolka Isfahan. Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay weerar ka geysatay xafiiska madaxweynaha Iiraan. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inay weerareen xafiiska madaxweynaha Iiraan. waxaan helnay war cusub oo ka yimid ciidanka Israa'iil oo sheegaya in ciidamadooda cirka ay garaaceen xarunta hogaaminta nidaamka Iiraan. bayaan ay soo dhigeen barta Telegram, ciidanka IDF waxay ku sheegeen in hub fara badan lagu riday xafiiska madaxweynaha iyo golaha sare ee ammaanka qaranka ee dalkaasi Iiraan. waxay intaa ku dareen in hay'ad tababar military iyo kaabayaal muhiim ah oo kale oo nidaamka ah sidoo kale la garaacay. hogaamiyihii hore ee sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa la sheegay inuu isticmaali jiray xaruntaas, sida ay IDF sheegtay. Khamenei ayaa lagu dilay xaruntiisa intii lagu jiray weeraro ay wada qaadeen Mareykanka iyo Israa'iil dhamaadkii toddobaadkan. ciidamada Israa'iil ayaa duulaan dhulka waxa ay ku qaadeen koonfurta dalka Lubnaan. ciidamada Israa'iil ayaa maanta u dhaqaaqay aag xuduudeed oo ku yaala koonfurta Lubnaan, sida wakaalada wararka AFP u sheegay ilo military. isha oo codsatay in aan la shaacin magaceeda ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay weerar dhulka ka soo qaadeen dhanka Kavarkela iyo banaanka Khiyam oo ku dhow xadka Israa'iil, isaga oo muujiyay cabsi ah in Israa'iil ay doonayso inay samaysato xeyndaab amni oo ballaaran oo koonfurta dalkaasi ah. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa amar ku siiyay askartiisa inay hore u sii socdaan oo ay la wareegaan goobo cusub oo ku yaala Lubnaan, iyadoo ay jirto xiisad sii kordhaysa. guud ahaan saaxiibayaal, warbixinteena inta ayaan kusoo koobaynaa. waxaan idinka codsanaynaa haddii aad inagu cusub tahay inaad channelka subscribe inoo saarto, muuqaalka inoo like garayso, asxaabtaada la wadaagto, aragtidaadana aad inoogu soo gudbiso qaybta faallada. mahadsanidin.